hala Madrid weli waa koox guulaysanaysa waxaana ay haysataa dariiqada guusha jiridda caanka ah ee Marca ee ka soo baxda cariga Spain waxay soo saartay 5 isbedel oo ay samaysay Real Madrid kadib bixitaankii macallim Zinedine Zidane shirkii jaraa'id ugu dhawaaqay Zidane in uu kaga tagayo kooxda Real Madrid ee ku ciyaarta Santiago Bernabeu waxa ka soo wareegata 100 maalmood isbedelada ay samaysay kooxda Los Blancos siday noqonayaan kacdoon lagu sameeyay dhanka goolhayaha inta uu maamulayay macallimka reer Faransa ee Zinedine Zidane waayihiisa kooxda Real Madrid waxa uu iska diiday laba saxiix uu ku soo xirigeli karay laba goolhaye waana David De Gea iyo sidoo kale goolhaye Kepa laakiin muddo yar ka dhaqaqistiisii garoonka Santiago Bernabeu madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez darbo wuxuu sameeyay saxiix cusub oo goolhaye ah wuxuuna kooxda Chelsea ay kala soo wareegeen goolhayaha reer Belgium ee Thibaut Courtois waxaana la filayaa in dhawaan booska uu kala baxo hogaamiyihii dhanka goolka ee kooxda Real Madrid Keylor Navas Gareth Bale waxa uu noqday hogaamiyaha kooxda Madrid laacibka reer Wales ma helaynin fursado aad u badan waayihii uu ku shaqeynayay macallimka reer Faransa ee Zidane kadib kulamo badan oo waaweyn uu ka soo muuqday kursiga kaydka sida Champions League oo labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay oo ahaa mid inta badan fadhiyay kursiga kaydka laakiin hadda waa ciyaariyaan xifradiisu aad ay u wanaagsan tahay isla markaana qayb ka ah hogaamiyaasha aan la loodi karin oo ay ku tashanayso kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu waxaana wada shaqayn wacan ay kala dhaxaysaa macallim Julian Lopetegui macallimka reer Spain ee Julian Lopetegui ee bedelka u noqday Zinedine Zidane oo fursad siiyay xidiga badan wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in macallimka reer Spain ee Julian Lopetegui uu arko Dani Ceballos in uu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan ee xilli ciyaareedkan kooxda ay ku shartagayso kadib markii door muuqda uu ku qaadan waayay kulamadiisii uu ku hoos ciyaarayay macallimka lagu magacaabo Zinedine Zidane laakiin hadda wuxuu qayb ka yahay xidigaha aadka ay ugu tashanayso kooxda Real Madrid sidoo kale Julian Lopetegui wuxuu fursad iyo kalsooni uu siiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Mariano Diaz waliba waxa lagu sharfay lambarkii 7 ee uu ka tagay halgamaygii hore ee kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo fursadaasina wuxuu ku helay dhaqaaqistii macallim Zinedine Zidane maalgelinta dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo isbedel uu ka yimid Real Madrid si xoogan uma adkayn suuqii dhawaa kooxdeeda maadaama uu helay macallim cusub oo doonaya in uu isku shaandheeyo ciyaartooydiisa waxaana lagu xasuustaa in Zinedine Zidane 4 saxiix uu sameeyay uu ku qarash gareeyay adul lacageed gaaraya 146 milyan oo lacagta yuuraha ah qodobka ugu dambeeya ayaa noqonaya bixitaanka Cristiano Ronaldo iyo sida loo buuxiyay booskiisa Julian Lopetegui ayaa nasiib u yeelan in garoonka Santiago Bernabeu uu kula shaqeeyo laacibka ugu wanaagsan dunida waqtiga kan xaadirka ee Cristiano Ronaldo kaas oo si weyn u caawin jiray macallimkii hore ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane laakiin macallimka reer Spain wuxuu fursad siiyay ciyaartooyda kale waxaadna ka arki kartaa farsamada wanaagsan oo ay soo bandhigayaan iyo goolalinta xilli ciyaareedkan labada xidig ee kala ah Gareth Bale iyo sidoo kale Karim Mustafa Benzema tani waa isbedel weyn waa warbixin ka hadlaysa kadib bixitaankii Zinedine Zidane imaanshihii Julian Lopetegui iyo isbedeladii ay samaysay Madrid tabiyaha waa aniga Maxamed Cabdirasaaq Tuleyta ah fadlan subscribe dheh channelkeena si aad ugu mid noqoto saaxiibadeen adigoo mahadsan